kala soco idaacadda VOA. dr cabdulaahi jaamac abiib iyo eedna macalin cabdiraxmaan waa qoys qurbaha ka tegay oo haatan howlo samafala ka wada magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal. qoyskan ayaa shaqooyin samafal ah iyo wacyigelinba waxay ka wadaan gobolka awdal, sidoo kalena hawshan samafal waxaa kala qayb gala ubadkooda. haddaba wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa qoyskan ka waraystay waxyaabaha ay la kulmeen intii ay hawshan gacanta ku hayeen. markii ugu horeysay waxaan wax ka qabanay oo meeshii ugu horeysay wax ka qabanay ahayd magaalada la yiraahdo Fadhixun, taasoon ka samaynay health post aan ka bilownay inaan dhisno oon isku dayno bal inay hadhow toole wixii lagu dari kara lagu daro. alxamdulillahna health postkii markaan dhisnay urur la yiraahdo NGO la yiraahdo IFAD ayaa intii kalena ku dartay dhismihii kale oo meeshii hadda waxay tahay meel MCH oo waxyaabo badan xanaanada ama dumarku ku dhalaan oo meel aad u weyn ah. marka aad iyo aad baan taasna aan uga mahadinaynaa dadkii naga caawiyay. waxyaabaha kugu cusub ee ku aragtay markaad fasaxa ku timid guud ahaan gobolka Awdal ama Somaliland maxaa kamid ah ee ka duwan aad isleedahay waxa laga qabto? ma waxa rabtaa inaan kuu sheego negative-ka ama positive-ka? wixii wanaagsan iyo wixii xun ee ku aragtay labada dhinacba inaad ay sheegtaan doonaya. waxa negative-ka aan ku arkay dhulkan waxa weeyaan dhalinyaro badan oo ama wax soo bartay ama yaanay soo barin oo gacmahoogu isi saaran yihiin oo laaban yihiin oo aanan isku daynin waxyaabo badan inay qabtaan. dad badan waxaad arkaysaa jaamacado ka soo baxay oo lagu dadaalay 4 sano ama 5 sano waxay ahayd inay jaamacad ka soo baxaan, oo markay jaamacaddii ka soo baxaan aanan garanaynin waxay qabtaan ama aan isku daynin inay wax qabtaan. taas ayaan waxyaabaha negative-ka aan dalka ka arkayo. waxyaabaha wanaagsan ee ka aragtayna maxaa kamid ah? waxyaabaha weyn ee aan ku arkay aan dalkan ku arkayna waxa weeyaan waa dal ay wado dalkan ilaa hadda horumarka la sameeyay waa horumar ay dad qabteen, ya ama ha ahaato horumar caafimaad ama ha ahaato horumar waxbarasho. marka waxaan arkay dadku haddii la tuso habkii wax loo qaban lahaa oo dadkii ka waayaaragnimo badan ama dibadaha kale kusoo arkay waxyaabo ka duwan oo la qaban karo, hadda dadka aad tustid dadku way ku dhiiranayaan oo way ku dabagelayaan in dalkan ilaa hadda iyagu ma horumar gaarsiiyay wax kale horumar gaarsiiyay ma arkay. cidna waxyaabo la yaabtay aad aragtay adna ama magaalooyinka kale booqatay ee kamid ah Somaliland ama Soomaaliyaba eed wax ku aragtay maxaa kamid ah? dhibaatada ugu weyn aan ku arkay magaaladan waxay tahay meelo badan aan soo booqanay in baahida jirta ama ay qabaan iyo dadkii wax ka tiri lahaa ama baahida dabooli lahaa inaysan jirin xiriir hadal inay dadkii wada hadlaan. tan waxa ay tusaysa magaaladan waxa ka jira iskoolkii ugu horeeya aan u malaynayaa Soomaaliya laga sameeyo ah dadka aan wax maqlin. waa iskool ay la shaqeyn jirtay qolo Talyaani ah, qofkii xasuusta Anna Laina oo halkan Boorama ku dhimatay iskoolkay bilowday. iskoolkii ilaa iyo sanadkii hore wuxuu haystay macaawino kaga imaado Talyaaniga, macaawanadii ayaa istaagtay. waxa ugu horeeyay aniga aad ugula yaabay waxay ahayd markaan galnay xafiiskii maamulaha waxa taalay kuraas ay sameeyeen dadkii iskoolka dhiganayay. kuraasaas waa kuraas cajiib ah, waa jeclaan lahaa inaad soo aragtid. markay igu yiraahdeen ma shaqeyno annaga oo lacag ma haysano income ma haysano, su-aasha ugu horeeya aan weydiiyay waxay ahayd kuraastan aad samayseen ma isku daydeen inaad iibgeysaan ama aad la hadashaan jaamacadaha jiro, iskoolaada jiro, xafiisyo dawladeeda jiro oo gata kuraastii. marka ma isku daydeen inaad noqotaan dad producer oo wax sameyn karo oo suuqa geyn karo? ma aysan sameyn. tan labaad waxay qabaan dumar dhartola. dumarka dharka tola waxay u badan yihiin dadkii ka weynaaday iskoolka dugsiga dhaxo ka baxay, qaar waa la guursaday, qaarna hadda ma qabaan reero, caruur kaliya leeyihiin, waxay raadinayaan shaqo. waa la qiyaasi karaa si ay shaqo ku helaan magaalada gudaheeda aad ay u adag tahay. waxyaabaha kale annaga aan kusoo kordhino isla markaa annaga madaxeena kusoo dhacay waxay ahayd waxay nala socotay Fawziya oo cusbitaalkan administrationka ka shaqeyso. cusbitaalku wuxuu u baahan yahay wuxuu tashaa kaamijka lagu shaqeeyo, wuxuu tashaa dharka qolka qalliinka loo isticmaalo, waxyaabo badan ay sameeyaan. wadankan waxaa joogaan u malaynayaa ama askar ka shaqeysa gobolka dharkoodii la tolo. marka waxa ka maqan isku xirkii baahidii dadkii loo baahnaan lahaa inay hawsha qabtaan iyo dadkii u sheegi lahaa iyo in dadkii lagu hago
weyga ay ku noqon lahayd dad keligood iswada. waa ognahay adduunka qof donor walbo wax bixiyo wuxuu sugayaa shaqada uu qabto inay tahay shaqo iyada iswadi karto. si iyada isu wada marka waxaa loo baahan yahay dadkii in laga caawiyo ama la istuso waxoodii ayaga ay hayaan waxay samayn karaan iyo dadka ay u geyn karaan. marka tanna waxaa moodaa wax yar inaysan ahayn waxaana la rabin in la sameeyo laakiin ka maqan dadkii hagi lahaa. kuwaasi waxay kala ahaayeen edna macalin cabdiraxmaan iyo doctor cabdulaahi jaamac abiib oo ah qoys qurbaha ka tegey oo haatan howlo samafala ka wada magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. waxay magaaladaasi ugu waramayeen wariyaha VOA Hashim Sheekh Cumar Good.